wararka naga soo gaaraya deegaanada Higlatariye iyo Galgalada oo ah xuduudka gobolka Galgaduud uu leeyahay dowlad deegaanka Soomaalida ayaa waxay ku warmayaan in halkaas ay ka taagan tahay xiisad colaadeed oo u dhaxaysa laba maleeshiya beeleed. xiisadan ayaa daba socotay kadib markii habeenimada xalay ay israasaaseen kooban dhex martiin labada maleeshiya beeleed oo dhowr jeer ku dagaalamay xuduudka u dhaxeeya gobolka Galgaduud iyo dowlad deegaanka Soomaalida. ilaa haatan lama soo warin wax khasaare ah ka dhashay israasaasayntaasi, hase yeeshee waxa mar walba la filan karaa dagaal toos ah oo dhex mara labada maleeshiya beeleed oo ku hubeysan hubka noocyadiisa kala duwan. xiisadan colaadeed ee ka soo cusboonaatay xuduudka gobolka Galgaduud leeyahay dowlad deegaanka Soomaalida ayaa daba socota dilal isdaba joog ah oo dhowr jeer ka dhacay deegaanadaasi, taas oo keentay in xiisad colaadeed ka dhalato. maahan markii ugu horeysay xiisadan noocan oo kale ah ay ka soo cusboonaadaan deegaanadaasi. labada maleeshiya beeleed ayaa dhowr jeer ku dagaalamay xuduudka gobolka Galgaduud leeyahay dowlad deegaanka Soomaalida, hase yeeshee odayaasha dhaqanka ee labada beelood iyo maamul goboleedka Galmudug ayaa ku guuleystay in la kala qaado maleeshiyaadkani. deegaanada maamul goboleedka Galmudug waxaa baryada soo dhaafaba ka taagnaa dagaalada iskaga hor imaanayaan beelaha wadadaga, hase yeeshee waxaa jira dadaal xooggan ay wadaan odayaasha dhaqanka beelaha iyo sidoo kale maamul goboleedka Galmudug asoo la doonayo in xal waara looga gaaro, isla markaana la doonayo lagu soo afjaro colaadda ka taagan gobolada Galgaduud iyo Mudug.